salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. xusuuqii ugu xumaa ee aan noloshayda maqlo, xusuuqii ugu argagaxa iyo naxdinta badnaa. Haa, adiga yuhuudda waad necab tahay, laakiin xusuuqan waxa uu kaa dhigayaa mid aad iyo aad uga naxa. Heer yuhuudda waxaa la gaarsiiyey intii xubinta taranka ragga la soo jaro, tan dumarkana la soo jaro, kadib ayaa la isku beddeli jiray. Ma sheegi karo sida ay u shaqaynayso haddii la isku beddelo, laakiin heer yuhuudda waxaa la gaarsiiyey jirkooda tababar lagu qaato. Waxa aan u malayn doonaa in uu mowduuceena dheeraan doono, sababtoo ah waxaan ka hadli doonaa xusuuqii uu Adolf Hitler u geystay yuhuudda, weliba isteebba isteebka ay soo martay. Inta aan mowduuceena bilaabin, fadlan waxa aan idinka codsanayaa in aad muuqaalkan like saartaan, kanaalkeena xogbaahiyana ku soo biirtaan, si aad ula socotaan mowduucyadeena dambe insha Allah. Bal aan u soo dhaadhacno xusuuqii uu Adolf Hitler u geystay yuhuudda. 1933 waxa ay gaartay tirada yuhuudda ku nool qaaradda Yurub ku dhowaad 9 milyan oo qof. Laakiin nasiib xumo, badankooda waxa ay ku noolaayeen waddamada uu Adolf Hitler haystay. Hitler aad iyo aad ayuu u necbaa yuhuudda. Taariikhdu waxa ay xustaa Hitler waagii uu yaraa oo weliba baalashlaha ahaa. Dadka caadiga ah marka uu u baalashayo, kabaha way u siibi jireen si ixtiraam ay ku jirto. Laakiin yuhuudda si isla weyne iyo kibir ay ku jirto ayay u dhihi jireen, anoo kabaha qaba igu dul baalash. Cadaawaddii uu halkaa ka qaaday Adolf Hitler waa taa uu xasuuqay. 1933 waxaa ku guulaystay doorashada Jarmalka xisbiga Nazi ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. Adolf Hitler, isaga oo aan xilka wax badan ku sii nagaan, ayaa waxa uu bilaabay in uu la dagaalamo ganacsiga yuhuudda. Waayo yuhuudda waa dad aad iyo aad u xirfad fiican, meel kasta oo ay joogaanna ganacsiga ku fiican. Xitaa xilligii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam markii uu Madiine imanayay, ganacsiga magaalada Madiina waxaa hogaaminaysay yuhuudda, inkastoo ribada iyo xaaraanta ay ku xeel dheer yihiin. Kumanaan ganacsigii yuhuudda ahaa waxa uu Adolf Hitler ku qoray xidig 6 gees ah oo kalarkeedu uu yahay huruudi, si loo garto dukaanka ama ganacsiga in uu leeyahay qof yuhuudi ah. Ma fududayn arrinkan uu Hitler ku dhaqaaqay, waayo ganacsiga Jarmalka badankooda yuhuud ayaa hogaaminaysay. Si kasta ha ahaatee, haddana waxaa la bilaabay boorar ay ku qoran yihiin yuhuudda waxba lagama iibsan karo. Halka tuulooyinka qaar marka ay booliska Jarmalka marayeen, waxa ay ku dhawaaqayeen nashiido lid ku ah yuhuudda. Waxaa ugu darnayd magaalada Kiel ee Jarmalka, waxaa lagu dilay looyar yuhuudi ah. Bishii Abriil 7, 1933 waxaa la soo saaray amar ah in yuhuudda laga mamnuuco saxaafadda iyo siyaasadda, kuwa ku jirana laga saaro. Takoorka yuhuudda lagu hayo intaa kuma ekaan. Waxaa la soo saaray haddana xeer ah in yuhuudda iyo Jarmalka aysan isguursan karin. Xitaa yuhuuddii Jarmalka ku noolayd waxaa laga ceshtay dhalashadii Jarmalka. Heer waxaa la gaarsiiyey yuhuudda in aysan doorashooyinka codayn karin. Ciqaabta yuhuudda loo geysanayo intaa kuma ekayn. Waxaa loo dejiyey xeer ah in carruurta yuhuudda aysan dhigan karin iskoolada Jarmalka. Tacaddiga, faquuqa, midabta koorka iyo naxariis darrada yuhuudda loo geysanayo ayaa weli sii socday. Waa kan habeenkii sida fiican loogu soo jeestay yuhuudda. 1938 bishii 11 sagaalkeedii, habeenkan waxaa dhacay
mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeeday Yuhuudda. Habeenkaas waxaa la dilay 100 Yuhuudi rabshadaha awgood, halka la burburiyay ganacsiyo waaweyn oo ay Yuhuuddu lahaayeen. Sidoo kale waxaa la xiray 30,000 oo Yuhuudi, waxaana dhulka lala simay 7,000 oo dukaamadii Yuhuudda ahaa, halka la gubay 574 kaniisadood ay Yuhuuddu lahaayeen. Habeenkan waxaa lagu magacaabaa dhaladii burburtay. Cunaqabatayn xoog leh ayaa la saaray Yuhuuddii Jarmalka ku noolayd. Intaa haddii ay ku ekaan lahayd, nimco iyo naruuro ayay ahaan lahayd. Ma taqaanaa habeenkii loo bixiyay dhimashada raaxada leh? Habeenkaa iyo habeenno la mid ah, Yuhuudda waxa ay door bideen in ay iska dhintaan tacaddiga iyo ciqaabta la marinayo awgeed. Run ahaantii xusuuqaas haddii aad maqashid, waad ooyi doontaa, xitaa haddii aad Yuhuudda neceb tahay. Habeenkaa dhimashada raaxada leh maxay ahayd? Qaab noocee ah baa loo xasuuqay Yuhuudda? Qaab noocee ah ayaa xubnahooda loo jarjaray? Anigu ma jecli in aan daqiiqado badan idinka qaato, waayo waqtigaagu waa kuu muhiim. Insha Allah xalqadaha dambe ayaan ku arki doonaa ciwaanada iyo ciwaano kale oo aad iyo aad u cajiib ah. Haddii kanaalka Xogbaahiye uusan subscribe kuu saarneyn, nalama socon kartid, waayo waxba kuu soo dhici maayaan. Fadlan subscribe taabo, waliba adigoo gambaleelka furanaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.